Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalkani Walaalaha Family. Mar labaad ayaan iga raali gelinaynaa maalmihii dhaweyd ee aynu ka maqleen janaalka cilado nagu timid awgeed. Haddaba maanta waxaynu muuqaalkeena kaga hadlaynaa musalsalka Walaalaha goosgooskiisa xalqada 64aad ee goosgooskeeda koobaad. Waa tahay fadlan daawade haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad soo booqato janaalkani Walaalaha Family, fadlan subscribe saar channelka, sidoo kale muuqaalkan like saar. aad iyo aad baad u mahadsantahay. intaa ka bacdi aynu guda galno falanqaynta goosgooska koobaad ee xalqada 64aad oo dhammaystiran. waa tahay waxay ku bilaabanayaa oo aynu arkaynaa halkii ay inaga dhammaatay, oo waxa ay inaga dhammaatay xalqadu ninkii Cumar lagu magacaabi jiray oo ku dhex suuxay baskii uu saarnaa. haddaba goosgoosku waxau ku bilaabanayaa ninka Cumar ah oo lagu wado sariirtii emergency-ga ee ambulance-ka oo lagula cararayo qolka degdega, isagoo oo looga shakisan yahay ama la leeyahay waxaa dhiig kaga furmay maskaxda. oo runtii Cumar arrinkani waxyeelo weyn ayay u geysan kartaa, waxaana loo sheegayaa in uu dhiig maskaxda kaga furmay ninkaani lagu magacaabo Cumar. waana arrin halis ku ah Cumar noloshiisa ku saabsan filimkani Walaalaha. dhanka kale waxa aynu arkaynaa islaantii lagu magacaabi jiray Shagool oo u imaanaysa islaantii Ganuurhayd, iyadii oo ay garab ordayaan labadeedii cunug Huljaan, iyo sidoo kale iyadoona ku canaananaysa oo ku dhahaysa islaan arxan daran ayaa tahay, adigoo islaan arxan daran ayaa tahay, maxaa sidaa u samaysay? oo waxa ay ku canaananaysaa oo ay ogaatay inay iyadu gubtay gaarigani, oo xataa waxaynu ogeyn gaarigani markii uu gubanayay inuu ku dhex jiray ninkaani lagu magacaabo Caakif, oo isaga oo ka dhex qayli ayaa uu ka dhexdhehayay xaaskaygii ayaan khiyaamay, waxaasii oo dhanna sidaasi daraaddeed ayaa ay igu dhacayaan. isaga oo welibana aad u calaacaraya ayaa uu hadalladaasi ku hadlayay. dhanka kale waxa aynu arkaynaa ninkii Saarbi lagu magacaabi jiray ee email jirsiyey gaariga ahna dambiilaha. hadda uu ogaaday ninkaani Cumar lagu magacaabo waxyar ka hor markii uu ku suuxayay baska inuu dhahayo dheef keliya tama dhaafinayo hadalka. dheef ayaa u dhahayaa. kadib ninkii Dooruuk lagu magacaabi jiray iyo Aasiya ayaa isla joogaa, waxaana ay Aasiya odhanaysaa Saad. isaguna waa uu ka dhaqaaqayaa isagoo u sii jeeda dhankaasi. kadib waxa ay iyadu leedahay bal maxaa dhacaya haddii ay isaga wax ku dhacaan, oo waxay ka hadlaysaa ninkaani Cumar lagu magacaabo oo hadda la sheegay in ay maskaxda dhiig kaga furmay oo halisba ku sugan naftiisu. iyaduna waxa ay leedahay maxaa dhacaya haddii ay maskaxda dhiiggaasi kaga furmo oo isaga ay wax ku dhacaan. runtii halis ayaa uu ku jiraa ninkaani Cumar lagu magacaabo. dhanka filimka ayaan ka hadlaynay. kadib Dooruuk ayaa ku soo laabanaya meesha ay hadda ka hor fadhiiday Aasiya, kadibna waa uu ka waayi doonaaba, waana ka daba bixi doonaa, waxaana u dhahayaa waxay aaday Saad ayaa u dhahayaa. dhanka kale waxa aynu arkaynaa ninkii lagu magacaabi jiray Axmed Yalmaas oo isaguna u imanaya islaantii hooyadii ahayd, oo uu ka leeyahay ninkaasi waxa uu iga damacsan yahay hal shay, oo ninkaasi waxa uu ka wadaa ninkaani Cumar lagu magacaabay ee hadda halista ku sugan. runtii ereyo qaldan ayaana uu ka odhan doonaa ninkaani lagu magacaabo Cumar. islaantaanina waa ay dhirbaaxi doontaa wiilkeedani Axmed Yalmaas lagu magacaabo, iyada oo aad u xanaaqsan. kadib Axmed Yalmaas oo hadalkiisa sii wata ayaa odhanaya, waana uu ka qoomamayn doonaa ereyadani iyo waxaas uu iga damacsan yahay ninkaasi. dhanka kale arrinka mucjisada leh ayaa ah ninkaani lagu magacaabo Saarbi iyo welibana sidoo kale odaygani Axmed Yalmaas lagu magacaabo Saarbi oo iska fadhiya barxadda guriga ayaa waxa uu imaanaya ninkaani lagu magacaabo. booliska ayaa albaabka taagan. runtii ninkaani Saarbi lagu magacaabona waa uu la yaabi doonaa, oo waxa uu odhan doonaa
isagoo oo naxsan yaa isagoo welibana naxsan. haddaba arrinkaani isweydiinta mudan ayaa waxay tahay ninkii lagu magacaabi jiray Cumar ee ogaaday in uu arrinka email ka dambeeyo Sarb. Markii uu sidaasi u ogaaday waxa uu ku dhex suuxay meeshii baska. haddaba sidee ayaa uu lagu ogaaday ninkani lagu magacaabo Sarb inuu jirsiiyey? ilaan halka qof ee ogaadayna waxa uu ahaa Cumar oo hadda xaaladiisa caafimaad laga dayrinayo. waa ayu qofka soo dacweeyey ninkani lagu magacaabo Sarb ee ogaaday in uu email jirsiiyey gaariga, mise askar ayaa baaritaan wada oo ninkani u yeedhay? waxaynu ogaan doonaa marka ay wax kastii kala caddaadaan. macnahayga xalqadda inagu soo wajahan ama muuqaalada xiga ayaa aynu si fiican ugaga hadli doonaa xaaladaasi. dhanka kale waxa aynu arkaynaa in ay boolisku xirayaan meheradii ay lahaayeen Gunuul iyo welibana sidoo kale odayga Orhaan lagu magacaabo, oo ay albaabada u laabayaan iyaga oo welibana intay qufulaan ku shaambadaynaya lamana furi karo ka dhaxaya ninkani lagu magacaabo. waxaynu arkaynaa in ay ku soo xirmayso gooskooskani gabadhii Aasiya oo leh isaga ayaan ka dhigi doonaa in uu bixiyo. macnihii waxay ka wadaa ama ay uga jeedaa runtii ma cadda, sababtoo ah hadalkaasi unba ay tiri markii ugu dambeysay ee gooskooskani. gooskoosku intaasi ayaa ku egyahay, balse aynu dul istaagno xaaladaha ugu muhiimsan ee ka dhici kara gooskooskani ama xalqadani inagu soo waajahan. haddii aynu dib ugu yara laabanno xaaladda Cumar iyo welibana Sarb, waxaynu ognahay ninkani Cumar lagu magacaabo hadda inuu dhiig kaga furmay maskaxda, oo dhakhtarku xataa u sheegaya Aasiya oo ay naxsanaayeen, balse ilaa iyo hadda uu dhakhtarka ku jiro. haddaba suurtagal ma ku tahay arrinkan ninkan lagu magacaabo, maadaama uu arkay markii ugu dambeysay gacantii u xirnaa Sarb iyo gacantii ay ka heleen wiilkii jiirsiiyey gaadhiga email in ay isku mid noqdeen, in uu ninkani Cumar lagu magacaabo sidaasi ku ilaawo oo uu maskaxdaasi dhiigga kaga furmay ilowsiiso arrinkani ku saabsan Sarbina sidaa kaga badbaado ninkani lagu magacaabo Cumar. waa suurtagal, balse looma badinayo arrinkani in uu sidaas u dhici doono. waxaynu ogaan doonaa xalqadda inagu soo waajahan. sidoo kale muuqaalada xiga ayaanu si fiican uga hadli doonaa, waana arrinka ugu muhiimsan ee hadda ka jira musalsalkani walaalaha xalqadda inagu soo waajahan. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkani. waa aniga oo Muuse. intaas ayaanan kusoo gabagabeynayaa. janaalkana cilad ayaa naga haysataa, fadlan ducadu waa dhankiina, garabtaag oo garabkiina ayaan nahay mar kasta. inaguna noo soo duceeya in howlaha dabcan lagu haysto ay si fiican ku dhammaanaan insha Allah. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkani. waa inoo iyo muuqaalka xiga. waan idin salaamaya.